قصة ير oo cajiib ah waana qaadashana leh hooyo ayaa wiilkeeda tiri hooyo been ha sheegin weligaaba waxa jira wiil yar wuxuuna ka baxay magaalada Makka isagoo ku sii socday magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq si uu halkaas uga soo barto cilmiga diiniga ah wuxuuna ahaa wiil aad u da'yar oo jiray waqtigaas 12 sano hooyadiis oo ahayd hooyo wanaagsan waxa ay ku tiri hooyo waxaad balan iiga qaadaa inaadan been sheegaynin wax kasta kugu dhaca wiilkii wuxuu yiri hooyo haye waa igu balan inaan been sheegin waxay siisay lacag dhan 400 dirham si uu ugu noolaado inta uu wadada ku sii socdo sahayna uga dhigto wiilkii yaraa dardaaran dheer oo hooyadiis siisay kadib wuu anbabaxay haddaba wiilkii yaraa markii uu dhowr maalin sii socday ayaa waxa wadada uga soo horbaxay nin weyn oo tuug ah wuu qabtay wuxuuna ku yiri wariyaa maxaad haysaa wiilkii ayaa ku yiri kaliya waxaan haystaa 400 dirham oo hooyadii soo siisay lacagtii ayuu yiri keen oo ka qaatay markii uu arkay in wiilkii uusan kala jecleen lacagtaas uu bixiyay ayuu ninkii wuxuu ku yiri wiilow maxaad runtii igu sheegtay oo lacagtii siisay oo adiga qarsan weysay wiilkii yaraa wuxuu ku yiri ninkii tuuga ah lacagta ka qaatay hooyaday ayaan kula soo balamay inaan been sheegin sidaas daraadeed ayaan kuugu sheegay lacagta oo adiga qaadatay ninkii wuxuu yiri oo kama baqaysid in lacagtan laga qaatay ay ahayd sahaydaada oo wax la'aan aan noqotid ama waxaad cuntid aweysid wiilkii wuxuu yiri ilaahay ayaa i abuuray isaga ayaana khayr ka sugayaa iyo qoodkayga balantii hooyadeena waan oofiyay oo waxaan diidayay inaan noqdo mid balantii hooyadiis oofin waayay ninkii tuuga ahaa aad ayuu la yaabay arinta wiilkaas yar ee yaqiintiisa wuxuuna ku yiri wiilkaygiiyow adiga waxaad ilaalinaysaa amaanada hooyadaada oo been maadan sheegin anigaan weynka ahna waxaan ilaalin waayay balantii ilaahay oo ahaa inaan xumaha ka dhowrsanaado tuug ayaana noqday maanta kadib waxaan u toobad keeni doonaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala oo aan kamid ahaa kuwa caasiyay xoolahaagina adigana waa kana qaado hadda kadibna wax dambo xumaana ma sameyn doono iyo tuugnimo ah xoolaha muslimiintii aan horay u dhacana intii aan celin karo ama aan awoodo waan isku dayi doonaa inaan celiyo runtii uu sheegay wiilkaas yar waxa ay keentay inuu toobad keeno nin weyn oo tuug ahaa isla markaana dhaca xoolaha islaamka subxaanallah dulucdii ujeedada sheekadan waxay tahay xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ahaa runtu waxay kugu hanuunisaa wanaaguna wuxuu kugu hanuuniyaa jannada